wasiirka amniga gudaha iyo maamulka qaran Kipchumba Murkomen ayaa sheegay in hogaamiyaha xisbiga DCP ahna madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Rigathi Gachagua loo ogolaan doono in uu qabto kulankiisa ka dhici doona Kamakunji. kulankaas oo keliya ayaana loo fasaxaya haddii uu si rasmi ah ugu wargeliyo booliiska si amniga loo adkeeyo. Murkomen ayaa sheegay in dowladda aysan marnaba ogolaan doonin shirar dadweyne oo aan sharciyeysnayn oo keeni karo rabshado, carqaladeyn karo ganacsiga ama nabadgelyo darro gudaha Nairobi xilliga Gachagua la filayo inuu ka soo laabto dalka Mareykanka maalinta berita ah ee Khamiista. If they have given the notification, of course, we have absolute no issue with any person, any political party, any politician calling for a meeting. Just need them to notify the police, and they must ensure that their meeting is peaceful and does not lead to situations of disrupting the peace for others, or burning of property, or looting, or violence. hadalkan ayaa imaanaya iyadoo taliyaha guud ee booliiska Douglas Kanja oo isna sheegay in soo laabashada Gachagua aysan ahayn arrin gaar ah ayna tahay dhacdo caadi ah oo aan keeni karin qalqal amni. Taliya Kanja ayaa xusay in ciidamada booliiska ay si buuxda u maamulayaan amniga, isla markaana la filayo in maalinta Gachagua uu ka soo degayo garoonka caalamiga ah ee JKIA xaaladdu ay ahaato mid caadi ah. maalmihii la soo dhaafay ayaa qaar ka mid ah taageerayaasha iyo xildhibaanada taageersan Rigathi Gachagua ay sheegeen in 10,000 oo taageerayaashiisa ah ay uga hortagi doonaan garoonka JKIA si ay u soo dhoweeyaan, kadibna ay socod halkaasi uga soo bilaabi doonaan ilaa ay ka imaanayaan bartamaha magaalada Nairobi waa xaruntii ganacsiga ahayd, kadibna ay u gudbi doonaan garoonka Kamakunji oo sidaas aan uga fogeyn xaafadda Eastleigh ee magaalada Nairobi si halkaas uu Gachagua uu kula hadlo taageerayaashiisa.